waajibaadka qaranka. waxaa la marayaa marxaladihii ugu dambeeyey ee ciribtirka kooxaha argagixisada ee cadowga ku ah nolosha shacabka iyo dawladnimada Soomaaliya. degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa laga dareemayaa go'aan qaran, diyaar garow militari iyo fariin cad oo loo dirayo cadowga nabadiidka. ciidamo si heer sare u tababaran kuna qalabaysan hubka noocyadiisa kala duwan loona carbiyey ciribtirka kooxaha argagixisada ayaa lagu soo bandhigay degmadaas. ciidamadan oo leh karti, niyad adag iyo u diyaar garow buuxa kuna wajahan furimaha dagaalka waxay dhammaysteen tababar muddo socday laguna soo bandhigayay awood ciidan, xirfad dagaal iyo siday ugu heelan yihiin ka qaybgalka dagaalka muqaddaska ah ee lagu difaacayo diinta, dadka iyo dalka Soomaaliyeed. taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Saraakiil Guuto Sahal Cabdullaahi Cumar oo la hadlayay ciidamadan ayaa siiyey awaamirtii ugu dambaysay ka hor inta aysan u dhaqaaqin furimaha dagaalka iyo godadka ay ku dhuumaalaysanayeen maleeshiyaadka gobolkooda dhacay ee argagixisada Al-Shabaab. waa maalin geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku soo bandhigeen halkan awooddooda, qiimahooda, sharaftooda, dadnimadkooda iyo kartidooda. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta idinla joogo, idinla hadlo, dardaaranno, waajibaad kala qaadanno si aan ugu shaqayno qarankii aan u dhaarannay. cadowga yar ee tabcaanka ee inaga horreeya inaad cashir u dhigi doontaan. war arrintaa ballan ma tahay? ballan ma tahay? guusha ciidamada qaranka waxay ku xidhan tahay muujin doontaa feejignaan joogta, isku duubni iyo wada shaqayn buuxda ee ka dhaxaysa ciidamada qalabka sida isla markaana ay muujinayaan kalsooni buuxda oo ku aadan in ciidanku ka adkaan doonaan haraadiga maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. waxaan oobadana har iyo habeen mugdi dayax qorrax qabow intaba inaanaan ka harin. soo diyaar maahan? waa maalin la ogaan doono shakhsiga u taagan gobonnimada iyo sharafka qarankeenna. diyaargarowgan iyo bandhigga awoodda ciidan ayaa muujinaya sida ay dawladda federaalka Soomaaliya uga go'an tahay ciribtirka argagixisada, sugidda amniga guud iyo dhisidda mustaqbalka ifaya oo ay shacabka Soomaaliyeed ku noolaadaan.